wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada wararka daawan doontaana waxaa kamid ah ciidamada dawladda oo soo istaag ku sameeyay odayaal doonaya in Sheekh Shaakir xaflad loo qabanaya ay ka qayb galaan iyo odayaasha Gurceel oo wacad ku maray in ciidamada dawladda ay geesay Galmudug 24 saac gudahood haddii ay ka bixi waayaan Dhuusamareeb Gurceel laga saari doono qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb xiisad ka jirta magaaladaas maanta madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka Banaadir oo iscasilay codeen muujinaysa in nabad iyo nolol ay ku lug leedahay Forex oo la helay dawladda Mareykanka oo markii ugu horeysay xayiraadda ka qaaday shirkadda Al-Barakaat Amnesty International oo sheegtay in suxufiyiinta Soomaaliyeed inay cabsi ku leeyihiin dawladda madaxweyne Farmaajo sabab ay u tahay waxa kale oo daawan doontaan ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaad kubaysan oo ku dagaalamay dalka Suuriya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan hadda subscribe saar ku dhufa gamaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad halkan markaynu wararkeena ku baahino aynu ku bilaabnay ciidamada dawladda federaalka ayaa waxay maanta soo istaag ku sameeyeen odayaal dhaqameed ka baxay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kuna sii jeeday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ciidankan oo sugidda Soomaaliya ayaa xiray laami dheer oo isku xidha degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel waxaana ay joojiyeen wax garad dhalinyaro iyo ganacsato ku sii jeeday magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb dadka ku sugan Gurceel waxay sheegeen in ciidankan oo sugidda Soomaaliya ay gaadiidka dagaalka ku jireen wadada laamiga oo ay amar ka siiyeen wadayaasha gaadiidka inay dejiyaan wax garad ku sii jeeda Dhuusamareeb ugaas Cali Dhoof ugaas Nuur oo kamid ah wax garadkii ka baxay Gurceel wuxuu warbaahintu sheegay in gawaaridii ay wateen la rasaaseeyay hayeeshee ay ka lugeeyeen dawladka Gurceel Dhuusamareebna ay ku sugan yihiin waxa uu sheegay in ku dhawaad 60 qof oo haween iyo caruur isugu jirta ay safarkaas qayb ka yihiin balse uusan cadeyn karayn ugaas Cali Dhoof ugaas Nuur waxa uu sheegay in odayaashan markii ay la hadleen ciidamadaas ay u sheegeen inaysan jirin cid ka baxaysa Gurceel sida daraadeedna ay doonayaan inay u gudbaan Dhuusamareeb balse ay ka biyadiideen waxa uu sheegay in arintaas kadib ay ku qasbanaadeen inay ku lugeeyaan magaalada Gurceel oo qiyaastii 40 kilomitir Dhuusamareeb u jirta waxaana uu sheegay inay isugu jiraan haween iyo odayaal xanuunsan sidoo kalena caruur cisbitaalo loo waday gaadiid ka saarnaayeen ku dhawaad 60 ay kor u dhaafayaan ciidamada dawladda ee Gurceel waxa uu sheegay inay rasaas ku fureen markay isku dayeen in gawaaridooda ay la soo gudbaan goobta wax garadkan laga horjoogsaday inay u ambabaxaan magaalada Dhuusamareeb ayaa ujeedka socodkooda waxaa lagu sheegay inay tahay ka qaybgalka munaasabad qada oo lagu taageerayo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo sheegay inuu yahay madaxweynaha maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya hayeeshee ugaas Cali Dhoof waxa uu sheegay in Dhuusamareeb ay ugu socdeen khilaaf soo kala dhaxgalay beesha ceer oo isagu ka dhashay taas beddelkeed waxa uu beeniyay in Sheekh Shaakir u socdeen balse wuxuu si cad u sheegay in Sheekh Shaakir uu ku dhashay Dhuusamareeb ayagana ay ku dhasheen Dhuusamareeb iyo Galgaduud ayna cid walba oo ay doonaan u tagi karaan balse ciidamada dawladda aysan kala qaadi karayn shacabka Galmudug waxay sheegeen haddii Sheekh Shaakir loo socdo ay su'aal isweydiiyay tahay haween iyo caruur xanuunsan in loo geynayo Sheekh Shaakir arintaas ayaa dad badan ay durbay ka falceliyeen waxaana ugaasku sheegay in arintaas ay tahay fal khaldan qaarkood odayaashan waxay wacad ku mareen 24 saac gudahood haddii ciidamada dawladda federaalka ee Galmudug la geeyo laga saari waayo ayaga talaab ay qaadi doonaan maadaama sida hadda ay u muuqatay tahay duulaan qaawan oo ay wadaan ciidamadaas ku sugan Gurceel iyo Dhuusamareeb waxa uu sheegay in ciidamadan ay sameynayaan xadgudubkii ugu weynaa oo loo geysto odayaal maadaama uu sheegay in odayaal u socda dhexdhexaadinta beelo gudahooda loo diiday sababna ay u tahay khilaafka siyaasadeed ee ka jira Galmudug sida daraadeed waxay wacad ku mareen in aysan arintaas sii fiirsan doonin oo 24 saac gudahood talaab adag ay ka qaadi doonaan ciidamadii isku dayay inay gawaaridooda ka reebaan sababna u noqday in maanta ay lugeeyaan 40 kilomitir geesta kalena magaalada Dhuusamareeb waxaa ku wada sugan madaxweynaha Galmudug oo dawladda aqoonsan tahay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Sheekh Shaakir oo xubnaha Al-Sunnah u doorteen madaxweynaha Galmudug waxaana labadaba kulmo isdiidan ay ka wadaan magaaladaas kulankan u dhaxeeya ama odayaashan waxay ku soo aadeysaa iyadoo dhawaan magaalada Dhuusamareeb ay shir ku yeesheen qaar ka mid ah odayaal kuwaas oo la kulmay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor odayaashan waxaa la tilmaamayaa in sababtaas darteed ay u imaanayeen Dhuusamareeb ayna la kulmayeen Sheekh Shaakir oo ayagu ay taageersan yihiin arrimahaas oo dhan dawladda federaalka waxaa la tilmaamayaa inay caburin ka sameynayso deegaanada Galmudug sababna ay u tahay in odayaashan maantii haweenka ay soo lugeeyaan odayaasha geesta kale waxay ugu baaqeen dhalinyarada Galmudug ee ka tirsan ciidamada in ay shacabkooda u turaan oo aysan jirin cid kale oo ay dhibaateynayaan oo aanan ahayn dadkii ay ka dhasheen iyo qaraabadooda waxaana ay ugu baaqeen in aysan la safan madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre taas beddelkeedna walaalihi garab ay ka dhigtaan odayaashii ugaasyada ugu baaqaya inay la saftaan ayuu yiri ugaasyo kamid ah ugaasyadii maanta ka soo lugeeyay Gurceel gaarayna Dhuusamareeb
geesta kale iyadoo ay taasi jirtan ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay dhuusamareeb magaalo madaxda galmudug warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya nooca uu ahaa qaraxa oo lagu sheegay miino halka dad kalena ay tilmaameen inay ahayd bam gacmeed taliska booliska magaalada waxa uu sheegay inay baaris ku wadaan waxaana uu sheegay in tiro dad ay u xireen falkaas qaraxa oo jugtiisa ay cusleed ayaa waxa uu ka dhacay goob ku dhow maxkamadda yiri Cabdullaahi Nuur oo kamid ah dadka deegaanka dhuusamareeb ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda falkan walow dhacdooyinka noocan oo ay dhabar ku saartaan al-shabaab oo urur hubaysan oo gacan saar leh al-qaacida qaraxani wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ammaanka sare loo qaadayo maadaama xasrad siyaasadeed ay ka jiraan xiisadan ka dhalatay doorashooyinka madaxweynayaal iska soo horjeeda oo lagu doortay dhuusamareeb taasoo ka dhalatay faragelin iyo joogjoog lagu eedeeyay maamulka fila Soomaaliya ayaa sabab loogu dhigay qaraxyada ciidamada booliska ayaana durba waxay bilaabeen baaritaano iyadoo ciidamo badan oo ka tirsan kuwa gorgor nabadsuugida nisa iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan danab ciidamo ka tirsan kuwii aalusunno oo la qalabeeyay iyo ciidanka booliska haram cadba ay ku wada sugan yihiin dhuusamareeb dadka deegaankana waxay sheegayaan in bambaanooyinka aan hore loogu baran dhuusamareeb sabab ay u tahay ciidamadaas kala duwan ee magaalada ku sugan taliyaha booliska dhuusamareeb gaashaanle Cabdullaahi Xasan waxa uu sheegay in falkaas ay u soo qabteen 2 qof oo la tuunsan yahay in falkan ay ka dambeeyeen baaritaanana lagu hayo ayahay wararkaas aynu ka baxnana madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir asaasilay hay-adda nabadsugadii sirdoonka qaranka nisa ayaa maanta oo khamiis ah shaacisay inuu shaqada ka tagay madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir war qoraal oo lasoo dhigay barta twitterka ee nisa ayaa sababta ku sheegtay khilaaf soo kala dhexgalay ururka nisa waxay sheegtay in maleeshiyaadka xiriirka la leh shabakada argixisada ee al-qaacida ay 2 garab noqotay khilaaf u dhexeeya labada garab ee maafiyada al-shabaab ayaa sababay inuu iscasilo madaxii amniyaadka gobolka banaadir Muuse Macalin Mucaabiye oo 39 sano jir ah oo garab raacsan horjoogay maad karatay ayaa lagu yiri bayaanku aad u koobnaa amniyaadku waa mid kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee kooxda waana shaqada ay qabato ee muqaabaraadka iyo xuraanka bishii Febraayo 3 ayay nisa markii waxay baahisay inay isku dhaceen hoggaanka sare ee xoogaga hubaysan Axmed Diiri horjooga argixisada al-shabaab ayaa ka saaray maad karatay iyo Bashir Qoorgaab golaha fulinta xarakada kana xuyuubiyay dhammaan xilalkii ay ka hayeen xarakada kadib markii ay ka dalbadeen horjoogaha Axmed Diiri joojinta qaraxyada joogtada ee lagu beegsado shacabka Muqdisho ayaa xilligaas lagu yiri war ay soo dhigeen nisa twitterka xildhibaano ka wada tirsan baarlamaankii siyaasiyiin mucaarada ayaa cambaariyay qoraalka nisa waxaana ay ku tilmaameen waxaan micno lahayn maadaama ay ku fashilantay inay ka hortagto weerarada al-shabaab forekisna waxay muujinaysaa in nabadii nolol ay ku lug leedahay ayaa la ogaaday iyadoo dadka ku nool Muqdisho ay ugu hoobteen sarifka lacagaha qalaad ee forex waxay soo taraya digniinaha qatarta oo ay ka bixinayaan siyaasiyiinta xildhibaanay dad hore xilal ugu soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in mashruucan uu siyaasadeysan yahay qaarkood uu ka mid yahay Cabdullaahi Maxamed Cali Sambuloolshe qaarkood uu ka mid yahay Cabdullaahi Maxamed Cali Sambuloolshe ayaa rumaysan in fila Soomaaliya ay gadaal ka reexayso barnaamijka runtii anigu waxaan aaminsanahay in mashruucan uu yahay dawin loo dhigay dadka Soomaaliyeed lana rabo in dhaqaalaha lagu baabiyo anigu shakhsiyan xogtaan hayo waxa jira wax la yiraahdo coronavirus oo hadda China ka dilaacay xog ogaalnimada waxay sheegaysaa in Mareykanku ku dambeeyay si dhaqaalaha China loo baabaasho yiri taliyii hore ee sirdoonka Soomaaliya waxa uu xuseen ujeedada dowladda farmaajo u taageerayso qorshahan uu yahay inay xakamayso dhaqaalaha dadka isla markaana u jaangoyso siyaasadda waxa uu ku daray anigu waxaan aaminsanahay forex waa coronavirus la rabo in lagu baabiyo dhaqaalaha dalka waxaan idin sheegay qorshaha farmaajo Fahad waxa kamid ah inay baabiyaan dhaqaalaha Muqdisho Hargeysa laga bilaabo Hormuudi Daabshil ilaa iyo Bajaaj yiri madaxii hore nisa waxa uu xoojiyay tuunka jiro in barnaamijkan lagu bilaabay lacag $10 milyan oo laga soo qaaday Qatar si loogu sababo dadka ku wabtay forex ee caasimada ku dhaqan isagoo ku adkaystay in nabadii nolol ay lug weyn ku leedahay Xuseen siyaasadeysan tahay waxaanu cadeen u ah iyadoo culimada fadwa ay ka soo saartay oo dowladda mamnuucda yiri bulshada iyo coddeer ugu waaniyay inay ka baaqsadaan forex isla markaana aysan dhaqaalahooda ku darsan suuqa sarifka ayaa u shaqeeya habka in qofka lacag u dhiganayo qofka isla markiina bil walba uu helayo lacag kala bar lacagtiisa iyadoo ay u taal qiimihii hore u dhigtay dowladda Mareykanka waxay xayiraadii ka qaaday shirkadda Barakaad dowladda Mareykanka ayaa xayiraada ka qaaday isla markaana liiska argixisada ka saartay shirkadda Al-Barakaad Group of Companies ee Soomaaliya qoraal la soo dhigay website-ka wasaaradda maaliyadda Mareykanka oo ku taariikhaysan Febraayo 12keeda kana soo baxday xafiiska maamulka hantida dibadda ayaa lagu sheegay in dhammaan shirkadaha u simaada Al-Barakaad laga saaray liiska shirkadaha taageera argixisada shirkadda hoos tagta Al-Barakaad Group of Companies waxaa kamid ah Al-Barakaad Exchange Al-Barakaad Bank Al-Barakaad Financial Al-Barakaad Global Telecommunication
Operation iyo kuwa kale. Qaramada Midoobay ayaa 8 sano ka hor Febraayo 17keeda 2012 waxay sidoo kale barakaad ka saartay liiska xayiraadda ee shirkadaha la xiriiriyo argagixisada. Liiskan waxaa shirkadda barakaad lagu daray sanadkii 2006 kadib markii kooxda Al-Qaacida ay weeraro badan ka geysatay dunida. Shirkadda barakaad ayaa tan markii liiskan lagu daray aan lagu helin wax cadeymo oo la xiriira argagixiso. Hayeeshee waxay caadiyan adag in shirkadda ama qof lagu daro liis argagixiso oo Mareykanka laga saaro. Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela oo liiska argagixisada Mareykanka lagu daray intii uu dagaalami jiray xorriyadda dalkiisa ayaa ku jiray tan 2008 14 sano kadib markii loo doortay madaxweynaha 1994. Go'aanka loogu saaray Al-Barakaad liiska Mareykanka ayaa albaabada u furay inay dib u hesho hantidii uu Mareykanku ka xayiray. Amnesty International waxay sheegtay in suxufiyiinta Soomaaliyeed cabsi ay ku nool yihiin farmaajo dartiisa. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in suxufiyiinta Soomaaliyeed la haysto wajahayaan qaraxyo, garaac, weeraro iyo xarig. Soomaaliya ayaa muddo mid ka mid ah dalalka ugu halista badan ee suxufiyiinta ay ka howlgalaan ayagoo wajahaysa laba halis oo kala ah kasoo warmida dagaalkii sharciga adag oo ay ku soo rogaan mas'uuliyiinta. Hayeeshee xaaladda ayaa iminka ka sii daraysa sida lagu sheegay warbixinta Amnesty oo ciwaan loogu dhigay waxaan ku noolnahay cabsi joogto ah. Amnesty ayaa sheegtay in suxufiyiinta Soomaaliya halis ku wajahayaan dhinac kasta sida weerarada kooxda Al-Shabaab iyo dowladaha caalamka u taageera ee Soomaaliya. Sida warbixinta ay tiri ugu yaraan 8 suxufi ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017 iyadoo ugu yaraan 8 kale oo dalka ay ugu carareen cabsi ay u qabaan noloshooda. Ka badbadida qaraxyo baabuur iyo in la toogto, la garaaco, la xiro si sharci darro ah. Suxufiyiintu waxay ku shaqeynayaan xaalad argagax leh. Waxaa sidaas yiri Depression Machine oo ah madaxa Amnesty ee bariga iyo koonfurta Soomaaliya. ugu dambeyntiina ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa ku dagaalamay waqooyiga dalka Syria kadib bannaanbax loogu soo horjeedo Mareykanka oo ka dhacay gobolkaas. Dalkaas oo ka dhacay tuulada lagu magacaabo Qirbad ama oo u dhow xuduudka degmada Qamishli ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay wiil 14 sano jir ah halka oday kalena lagu dhaawacay. Militariga Mareykanka ayaa la sheegay inay rasaas fureen kadib markii dadka deegaanka ay isku dayeen inay dibadbaxaan kolonyada gaadiidka ciidamadaas oo doonayay inay gudaha u galaan deegaanka iyo dowladda Syria ay maamusho. dhacdada saxafi la socday militariga Syria ayaa wuxuu muuqaal fiideo ah ka qabtay diyaarad dagaal oo Mareykanku ay leeyihiin oo duqeyn ka geysatay fariisimo ay ciidanka dowladda Syria ku leeyihiin gudaha degmada Qamishli. muuqaalka fiideoga waxaa ka muuqday diyaarad nooca F-15 jad ah oo ay ciidanka cirka Mareykanku leeyihiin oo dul martay deegaanka ay ciidanka Mareykanka iyo dadka deegaanka ku dagaalameen.